soo dhawaada asxaabi maanta waxaa idin soo koobi doonaa filim American oo soo baxay 2014 filimkan magaciisu waa Animal waana kan filimku ee daawo oo taxadir filimku waxa uu ku bilaabmayaa koox dad ah oo ka kooban 4 qof oo ka ordaya makhluuq soo weeraray iyaga makhluuqu waxa uu qabsaday gabadh iyaga la socotay makhluuqu waxa uu jiitay gabadha la qabsaday ninkeeda oo lagu magacaabo Douglas ayaa u soo hortay dhinaceeda si uu u badbaadiyo laakiin uu awoodi waayay dhinaca kale waxaynu aragnaa 5 dhalinyaro arday jaamacadeed ah oo soo socda dhinaca kaynta Alisa waa gabadh kamid ah ardayda waxaana la socday walaalkeed saaxiibkeed iyo 2 arday oo kale dhalinyaradani waxay qorsheynayeen inay socod ku maraan kaynta oo dhan oo ay ku dalxiisaan markii ay soo gaadheen kayntii waxay arkeen board ogeysiis oo ku dhagan afka hore ee kaynta ogeysiiska ku qornaa boardka waxa uu u dhignaa sidan kayntan waxa ka mamnuuca inay galaan bini'aadamku dhalinyaradu wax ihtimaam ma aysan siin ogeysiiska ku qornaa boardka waxaanay u maleeyeen inay tan tahay khiyaano dawladeed si aan loo googoyn dhirta ku taal kaynta dhalinyaradii waxay horay ugu sii socdeen kayntii Alice waxay saaxiibkeed u sheegtay inay sanad walba iyada iyo qoyskoodu ay soo booqan jireen kayntan laakiin waxay u sheegtay in kayntan ay ugu dambeysay 7 sano ka hor maadaama iyada iyo qoyskooduba ay u guureen gobol kale dhalinyaradu intii ay kaynta socdeen waxay ku arkeen raqda xayawaan lagu cunay kaynta dhexdeeda cabaar markii ay dhex socdeen kaynta Alice waxay walaalkeed u sheegtay inaanay intaan ka badan sii socon doonin Alice waxay walaalkeed u sheegtay in haddii habeenku ugu dhaco kaynta dhexdeeda ay la kulmi doonaan dhibaato aad u xun laakiin walaalkeed waxa uu u sheegay inuusan dib u noqon doonin ilaa uu soo arko qaybo badan oo kamid ah kaynta waxaana uu u sheegay inay iska yareyso warwarka badan isagoo u sheegay inaysan wax dhibaato ah la kulmi doonin cabaar markii ay wada murmeen ugu dambeyntii Alice waxay aqbashay fikirkii walaalkeed dhanka kale Alice saaxiibkeed waxa uu ka xanaaqay muranka 2 qof ee walaalaha ah waxaana uu u dhaqaaqay meel iyaga ka yara fog laakiin markii uu cabaar socday waxa uu arkay boorso yar oo dhex taala kaynta dhalinyaradii waxay ku habeensadeen bartamihii kaynta waxaanay canaananayeen Alice walaalkeed maadaama uu isagu dhex keenay kaynta bartamaheeda inta kadib dhalinyaradii waxay arkeen qaybo kamid ah jirka gabadhii uu makhluuq cunay ee aynu ku soo arkanay bilowga filimka isla xilligaas dhalinyaradii waxay maqleen sanqadh aad u weyn dhammaantoodna aad ayay u argagaxeen waxaanay ogaadeen inay wax khaldan yihiin isla markiibana waxay go'aansadeen inay u cararaan meeshii uu yaalay baabuurkoodu laakiin intaanay gaadhin baabuurkoodii waxay arkeen makhluuqii oo hortooda taagan makhluuqu waxa uu isku dayay inuu soo weeraro iyaga laakiin nasiib wanaag waxay ka soo carareen dhinaciisa waxaanay ku dhunteen geed hoostii isla markiibana waxay meel dheer ka arkeen qol ku dhex yaala kaynta Alice walaalkeed ayaa kooxdii u sheegay inay iyagu aadaan dhinaca qolka isaguna uu aadi doono dhinaca makhluuqa si uu uga jeediyo iyaga Alice walaalkeed waxa uu u dhaqaaqay dhinacii makhluuqa isla markiibana makhluuqii ayaa qabsaday oo cunay Alice walaalkeed dhanka kale dhalinyaradii kale waxay ku guuleysteen inay dhaafaan makhluuqii oo ay aadaan dhinaca qolka laakiin makhluuqu waxa uu qabsaday lugta mid kamid ah dhalinyaradii oo lagu magacaabo Mandy laakiin kooxdii waxay ku guuleysteen inay saaxiibadood ka badbaadiyaan makhluuqa markii ay soo galeen qolka waxay ku arkeen 3 qof ee ka badbaaday makhluuqa ee aynu ku soo arkanay bilowga filimka waxaana ku jiray ninkii gabadha makhluuq cunay oo lagu magacaabo Douglas haddaba kooxdu iyagoo isweheshanaya ayaa waxay xidheen albaabkii qolka waxaanay aaminsan yihiin inuusan makhluuq soo gali karin gudaha qolka gabadh kamid ah kooxda qolka loogu yimi oo lagu magacaabo Vicky ayaa Alice uga sheekaysay sida ay ku soo galeen kaynta waxay u sheegtay inay u socdeen safar shaqo kadibna ay soo galeen gudaha kaynta isla markiibana ay arkeen makhluuq aad u weyn waxayna u sheegtay in makhluuqaasi uu cunay xaaskii Douglas dhinaca kale Alice saaxiibkeed ayaa waxa uu wacay dhammaan waalidiintii dhalinyarada isagoo u sheegay meesha ay joogaan iyo wixii ku dhacay waxaanu ka dalbaday in la badbaadiyo Alice saaxiibkeed waxa uu kooxdii u sheegay inaysan warwarin maadaama goordhow la badbaadin doono iyaga dhinaca kale Douglas waxa uu qabaa fikrad ka duwan fikirka Alice saaxiibkeed isagoo kooxda u sheegay inaysan weligood badbaadi doonin waxaanu u sheegay in haddii ay isku dayaan inay ka baxaan qolka oo makhluuq soo weerari doono iyaga dhammaantoodna uu sidaa ku cuni doono inta kadib waxay xidheen dhammaan daaqadaha qolka si aanu makhluuq uga soo weerarin Alice aad ay u argagaxsan tahay hadda maadaama niyadeedu u sheegayso in makhluuq uu midmidhow u gaadhsan doono dhammaantood dhinaca kale Alice waxay saaxiibkeed weydiisay waxa uu makhluuq yahay iyo magaciisa laakiin saaxiibkeed waxa uu u sheegay inaysan muhiim ahayn inay ogaadaan macluumaadka ku saabsan makhluuqa ee ay kaliya muhiimadoodu tahay sidii ay uga baxsan lahaayeen iyagoo wada hadlaya ayaa waxay si kadis u arkeen makhluuqii oo dalool ka soo eegaya
makhluuqu waxa uu isku dayay inuu gudaha u soo galo qolka laakiin isla markiiba waxay ku guuleysteen inay awdaan daloolkii makhluuqu waxa uu bilaabay inuu ku wareego hareerihii qolka isla markiibana makhluuqu waxa uu soo jabsaday mid kamid ah daaqadaha qolka waxa uu isku dayay inuu gudaha u soo galo qolka laakiin kooxdu waxay isu bahaysteen sida ay u joojin lahaayeen makhluuqa waxay soo qaadeen loox weyn sida ay ugu awdi lahaayeen daloolka laakiin halganka waxa ku dhaawacmay Vicky ninkeeda isla markiibana Alice iyo Mandy ayaa soo aaday dhinaciisa si ay u caawiyaan isaga waxay isla qaadeen loox weyn si ay ugu awdaan daaqada laakiin way qaadi kari waayeen looxii maadaama uu aad u cuslaa isla markiibana Alice saaxiibkeed ayaa u soo orday dhinacooda waxaanu sun indhaha kaga buufiyay bahalkii dhanka kale Douglas ayaa u soo orday dhinacooda si uu u caawiyo waxaanay si wada jir ah u qaadeen looxii waxaanay ku awdeen daaqada inta kadib Vicky ninkeeda ayaa Douglas ku bogaadiyay sida uu u caawiyo iyaga Douglas waxa uu u mahadceliyay Vicky ninkeeda laakiin waxa uu u sheegay inay suurtagal tahay in makhluuqu mar labaad soo weeraro iyaga maadaama aysan haysan qalab kale oo ay ku awdaan daldaloolada guriga waxa uu kooxdii ku wargeliyay inay si dhaqso leh uga tagaan goobta maadaama makhluuqu aanu ka agtagayn iyaga Alice saaxiibkeed ayaa kooxdii ku wargeliyay inaysan warwarin maadaama goordhow loo imaan doono oo la caawin doono laakiin Douglas ayaa ku qoslay hadalkii Alice saaxiibkeed waxa uu u sheegay inuusan qof bini'aadam soo galin kaynta si uu u caawiyo iyaga maadaama kayntanu tahay mid laga mamnuucay bini'aadamka Douglas waxa uu kooxdii ku yiri waa inaynu sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxnaa goobta laakiin Vicky ninkeeda ayaa ka soo horjeestay hadalkii Douglas isagoo kooxdii ku amray inay iskaga jiraan qolkooda oo aysan marnaba dibadda uga bixin laakiin Alice saaxiibkeed ayaa ka soo horjeestay hadalkii Vicky ninkeeda waxa uu kooxda u sheegay inuu isagu u bixi doono banaanka si uu caawimaad ugu raadiyo iyaga isla markiibana Alice ayaa saaxiibkeed qacanta soo qabatay waxaanay soo gelisay qol kale waxaanay uga digtay inuu banaanka u baxo laakiin Alice saaxiibkeed waxa uu u sheegay in dhammaantood aysan ka bixi karin qolka cid caawisaana aysan u imaan doonin waxa uu ka codsaday inay u fasaxdo banaanka si uu caawimaad ugu raadiyo Alice waxay ka aqbashay codsigiisa iyadoo aad u warwarsan inta kadib kooxdu waxay qorsheeyeen in Vicky ninkeedu uu baxo banaanka oo uu jeediyo dareenka makhluuqa Alice saaxiibkeedna uu aado dhinaca baabuurka si uu u kaxaysto baabuurka oo uu keeno caawimaad isla markiibana Vicky ninkeedu waxa uu soo qaatay qori dab ah oo isaga ilaalinayo makhluuqa waxaanu u soo baxay banaanka waxaana uu u fooriyay makhluuqii si uu ugu jeediyo dhinaca kale Alice saaxiibkeeda labaad ayaa iskoob yar ku eegay makhluuqa si uu u ogaado meesha uu joogo makhluuqu Alice saaxiibkeeda labaad waxa uu Vicky ninkeeda ku wargeliyay in makhluuqu u soo dhawaaday isaga inta kadib Alice saaxiibkeed waxa uu ka fogaaday dhinacii qolka isagoo u jeeda dhinacii baabuurku yaalay dhanka kale Alice saaxiibkeeda labaad waxa uu mar kale makhluuqii ku eegay iskoobtii waxa uu Vicky ninkeeda ku wargeliyay inuusan arkayn makhluuqa waxa uu ku yiri waxaan u maleynayaa in makhluuq iskaga cararay goobta dhinaca kale Alice iyo kooxdii kale oo ku jira gudihii qolka ayaa waxay maqleen qayladii Alice saaxiibkeed waxayna garwaaqsadeen in makhluuq uu cunay Alice saaxiibkeed dhanka kale Vicky ninkeeda iyo Alice saaxiibkeedii labaad waxay go'aansadeen inay gudaha u soo galaan qolkii laakiin Douglas ayaa si degdeg ah u xiray albaabkii qolka isagoo ka baqayay in makhluuq soo galo Vicky waxa isku dayday inay albaabka furto si ninkeedu uga soo galo laakiin Douglas ayaa u diiday inay furto albaabka Alice waxay la hadashay saaxiibkeedii labaad waxaanay u sheegtay inuu albaabka jikada ka soo galo isla markiibana Alice saaxiibkeeda labaad iyo Vicky ninkeedu waxay ka soo galeen albaabkii jikada isla xilligaasna Vicky ninkeedu waxa uu faad ku dhuftay Douglas sidaas ayuuna Douglas ku miyir beelay markii uu soo miirsaday waxa uu arkay gacmihiisa oo lagu xidhxidhay xadhig waxaana xadhigga ku xidhay kooxdiisa maadaama ay ogaadeen inuu yahay laba wajiilo danaysta ah inta kadib waxaanu aragnaa Alice oo aad u murugaysan maadaama ay weyday walaalkeed iyo saaxiibkeed dhanka kale waxaanu aragnaa Alice saaxiibkeeda labaad oo niyad jabsan waxauna Alice iyo Mandy u sheegay in goordhow ay wada dhiman doonaan dhammaantood waxa uuna raali geliyay Mandy maadaama ay u xanaaqsanayd isaga maalmihii ugu dambeysay dhalinyaradu iyagoo wada hadlaya ayaa waxa soo dhacay taleefan kamid ah taleefanadii waxaanay u maleeyeen in Alice saaxiibkeedu soo diray taleefanka uuna doonayo in la caawiyo waxay soo qaadeen taleefankii laakiin wax jawaab ah maysan helin inta kadib Alice waxay go'aansatay inay u baxdo dibadda si ay u soo badbaadiso saaxiibkeed haddii uu nool yahay Mandyna waxay soo raacday saaxiibadeed dhanka kale Vicky ninkeeda ayaa xaaskiisa kula taliyay inaysan ka soo bixin qolka isagoo u sheegay inuu raaci doono gabdhaha si uu la soo badbaadiyo saaxiibkood isla markiibana Alice waxay aragtay saaxiibkeed oo dhaawac ah oo hor yaalo qolka Alice iyo Mandy waxay soo qaadeen isagoo dhaawac ah
isla xilligaasna makhluuqii ayaa yimid goobtii Fiki ninkeeda ayaa isku dayay inuu joojiyo makhluuqii laakiin ugu dambeyntii makhluuqii ayaa qabtay oo cunay dhinaca kale waxaanu aragnaa Alice saaxiibkeedu xaaladiisu aad u xun tahay Douglas ayaa Alice ku yiri xaaladda saaxiibka aad ayay u xun tahay waxaana laga yaabaa inuu sidaa ku dhinto waxa uu u sheegay qorshe ah in saaxiibkeedan dhaawaca lagu tuuro dhinaca makhluuqa si makhluuqu ugu jeesado isaga sidaana ay uga badbaadaan makhluuqa oo ay uga baxsadaan goobta Alice waxay ka soo horjeesatay fikradii Douglas waxaana u sheegtay fikrad kale oo ay kaga badbaadayaan makhluuqa waxayna u sheegtay fikrad ah inay gubaan makhluuqa iyadoo u sheegtay inay jikada guriga kala soo baxaan shidaal si ay ugu gubaan makhluuqa Douglas waxa uu aqbalay fikradii Alice ayaa saaxiibkeeda labaad ku amartay inuu Douglas xadhiga ka furo Douglas markii xadhiga laga furay waxa uu si arxan darra u dilay Alice saaxiibkeedii dhaawaca ahaa Alice iyo asxaabteedu aad ay u argagaxeen isla xilligaasna makhluuqii ayaa soo galay qolkii oo qabsaday Douglas makhluuqu waxa uu midmid u jeexay jirkii Douglas uuna cunay isla markiibana kooxdii Alice asxaabteedu waxay heleen fursad ay ku soo qaataan shidaalkii yaalay jikada waxayna gubeen makhluuqii waxaanay ka soo baxeen qolkii markii ay ka soo baxeen qolka Fiki waxay aragtay meedka ninkeeda oo hor yaalo qolka hortiisa isla xilligaasna Alice saaxiibkeedii labaad ayaa waxa soo weeraray makhluuqii oo jiitay inta kadib kooxdii badbaaday waxay ogaadeen in makhluuqu aanu hayn hal mid ee uu yahay laba makhluuq waxayna eegeen makhluuqii ay dabka ku soo shideen oo gubanaya isla xilligaasna makhluuqii labaad ayaa soo weeraray waxaanu qabsaday Fiki isla markiibana Alice iyo Mandy waxay ka carareen goobta laakiin makhluuqii ayaa soo daba orday waxaanu qabtay Alice uuna cunay isla xilligaasna Mandy waxay ka carartay goobta iyadoo og in makhluuqu uu soo weerari doono iyada Mandy waxay jirkeeda ku dhamuuqday dhoobo si aanu makhluuqu u soo urin oo u soo dabagelin ugu dambeyntiina Mandy waxay soo gaadhay meeshii uu baabuurku yaalay Mandy markay baabuurkii gudaha u gashay ayaa waxay aragtay makhluuq kale oo soo weeraray laakiin Mandy waxay istaadhay baabuurkii waxaanay makhluuqii jirsisay taayirkii baabuurka isla xilligaasna waxay awooday inay ka baxsato kaynta Mandy inta ay jidka sii socotay waxay ku aragtay makhluuq baqtiyay oo makhluuq kale cunayo waxaanay ogaatay in kaynta ay ku jiraan makhluuqyo badan oo noocan ah haddaba daawadayaal waxaan soo gaarnay dhamaadka muuqaalka fadlan hadduu muuqaalku ka cajabiyo like saar sidoo kalena subscribe kanaalka si aynu u soo badino muuqaaladan oo kale mahadsanid